gudbiyo masjidka waxa waaye xoogaa gogol xumo ayaa naga hayso marka gogoshii roogana noo yiilay ilaa muddana waa yiilay marka waxa waaye waa iska dhamaadeen in badan haday yaalashay waa dareemi kartaa calal ayay noqdeen marka waxaan jamaacada maartahay ogeysiinaynaa masjidka inuu gogol u baahan yahay oo gogoshaas tii hore waa dhamaatay loo bedelo xabadkan oo hadda qaybaha hore yaallo umba maarta noo yaallo oo asugu haafa qaybahaas dambe oo dhan waa aragtiin mutulaalka lagu dukanooya marka waxa waaye jamaacada waa horta inay ku dadaalaan masjidka maarta dayactirkiisa iyo hagaajintiisa mar walba waxa waaye shaygu wuxuu u baahan yahay dayactir iyo hagaajin iyo qurxin u baahan yahay sida guryaha maarta loo markasta wax looga bedelo ayaa masjidku in looga bedelo u baahan yahay marka insha Allah ta'ala jamaacada waxaan maarta u soo gudbinaynaa in gogoshaas loo baahan yahay masjidka qof kasta wixii tabartiisa iyo amba maarta han naqato wuxuu jeebkiisa ka dhiibto ama han naqato afkiisa wuxuu maarta ku keeno oo maarta ogeysiis iyo meel kale oo maarta gaarsiiyo waxa maarta codsanaynaa in masjidka noola gogol noogula raadsho oo dadka mutulaalka hadda ku dukanayaan waa aragtiin maarta aan taas wax ka bedelna ayaa loo baahan yahay khudbada waxay ku saabsanayd maanta saad ogsoontiin waxa ku jirnaa maalmihii khayrka iyo barakada badneeday maalmahaas oo ah 10 dilxija 10ka bisha dilxija waa maalmo khayr badan oo faa'iido badan ilaahay subhanahu wa ta'ala ana quraanka ayuu ku muujiye fadliga iyo wanaaga ay leeyihiin 10kan bari ilaahay quraanka wuu ku dhaartay 10kan quraanka dhexdiisa markaas Allah wuxuu leeyahay wal fajri wa layaalin 10 waxaan ku dhaaranahay dhaha alle waa barki iyo layaalin 10 maalmo 10 ah hamiino 10 ah fajrigaas culimada waxay ku fasireen fajru yawmi arafa inuu yahay ku fasireen ay maalmahana waxay ku fasireen inuu yahay 10 dilxija inay tahay ay ku fasireen sidoo kale Allah subhanahu wa ta'ala xuskiisa ayuu ku amaana dadka wanaagsan oo xajka tago markaas wuxuu yiri xajka markay yimaadaan nabi ibraahim uu sheeg dadku waxay qabanayaan liyashhadu manaafi'a lahum si ay meel faa'iidooyinkooda ah ay goobjoog u noqdaan wax faa'iidadooda wayadhkuru ismallahi fi ayyam ma'lumat wayadhkuruna ismallahi fi ayyam ma'lumat maalma la yaqaan ilaahay bi xusayaan maalmahaas waa 10 dilxija sida uu ku fasiray ibn Abbas oo tafsiirka quraanka saxaabiga ugu horeeya sidoo kale Abdullah ibn Zubayrne uu ku fasiray sheekha la yiraahdo Mujaahid oo mufassiriinta waaweyn oo ku fasiray waa 10kan maalmood ayaa loola jeedaa ilaahay baa si gaar ah loo xusaa maalmahan fadliga ay leeyihiin nabi Muhammad baa nagu baraarujiyay sallallahu alayhi wasallam nabigayna wuxuu leeyahay ma min ayaamin al-amal as-salih ahab fiihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayam majri ayuu dhahay maalmo oo amalka wanaagsani ilaahay agtiisa looga jacayl badan yahay maalmahan oo 10 dilxija ula jeediya nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabadiya markaa fadhiya waxay dhaheen walal jihad fi sabilillah ya rasuulallah jihadka oo jidka ilaahay lagu jihaadayo miyuusan ka fadli badnayn markaasuna wuxuu walal jihad fi sabilillah jihadka oo jidka ilaahay lagu jihaada hatta kama fadli badno amalka maalmaha la sameeyo illa rajulun nin ma ahna kharaja bi nafsihi wa malihi oo naftiisa iyo xoolihiisa la baxay oo jihadkii aada fi sabilillah falam yarji' min dalika bi shay'in aan waxba kala soo naqan waxa soo idin naftiisana ku baxday xoolihiisana ku baxeen kaas baa amalka oo sameeyo maalmaha ka sareey kariya wixii la sameeysto sidoo kale nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri maalmahan waa maalmaha ugu weyn ilaahay agtiisa waana kuwa loogu jecel yahay amalka la sameeyo dhexdooda nin saxaabada kamid ah fadhiya wuxuu yiri markaas rasuulka ilaahayow maalmahan tiradooda oo kale to jihaada ninki sameeyo ka waran 10 bari waaye 10kaas bari ninki jihaad u taagnada ka waran oo dagaal wada jihaada miyuusan fadli gaaraynin markaasuu yiri asiga hatta kama fadli badno hatta tiradooda oo jihaad la sameystaa kama fadli badno illa afiir mid booraystay maahane
يعفر وجهه في التراب أو وجهي سعيدة كبوريي وجهي سعيدة كبوريي عمل لسماء كاس بأمارة تكرر كرو أو جهادك إلهي أنت كبحي أو وجهي سي يتنتي سي كركي سيرن بساسي أسو جهادك كوسي سعدو قف كاس كسر ريكرو إذن مالمهاني ومالمئات وخير بدن وحال قد دالا وحو الباء عبادة حافظك اللي يرى ابن حجر العسقلاني وحوليه هي وحا موقنا يسودا السببت مالمها كلو دن وقصر ريان وحا اسوي مادو عبادة ووين إذل أيا اسوتي ماذا مالمهان مركز الصلاة إيا الصونكي إيا الصدقة إيا حجكي لما ويسوي مانا يان مالما يدعي كرتمجر توكله لأن حجكي مالمهان على السمين يا صلاة ولا الدكان يا صدقة ولا ديبها أضحية يا وحي بالقليا وحي مانا يساعدنا صونكيو طبعا كان بري سجال كيس الريوال السومة قف كي وذا دمستر سجال كجارسي خير وبديي خير بدن وسميي مالك الطمانات لما السومي كر وحرام سجا ما أنت عيدة لما السومي كر إلا الصوم وحرام مركه سجال كبريو كلاتو قف كي صومه خير كوبت صدي قف كي مالمها قار كصومنا سيدو كلا أجر بدن ولا يمدي هدي أو دونا سجال كبري مالين صون مالين دافو سمي كريا دور بريو كسومي كريا تضبط مارت مركي لجاري يسديد ده سجال كسومي كريا وحأقصي أفضل سن مالين كسجالات قف كستاهي وإنه كد دالا مالين السجالات إنه سن دافنين مالين السجالات هدي كد دافتو وحوينا كد دافي وحوين أيا كد دافي ساد ردد مالين السجالات ومالين تأجب بدن إلهي دتك النار تكحريو مالين السجالات ومالين تأجب بدن إلهي دتك النار تكحرينايو اسكت إن تكمل نقطه مالين السجالات كوا الله حريو صانك أياك ماذا واحد لجو حروبه أو نار تلجو حروبه والصيام جنة أيوة النبي صلى الله عليه وسلم صانك وقاشان وحو قاشان كيها نارته وحو قاشان كيها فسادك وحو قاشان كيها منكر إذله حمان إذل أيوة وحو كيها قاشان ساد راد القفك مركب سومية واسئل علينا يا واد أركتين مركب السومية هاي فسادك والله يرينا وركح والله يرينا فعل ذا والله يرينا وحنو حرام تطلع عنوجود والله يرينا يا أنت لسومية ولا اسئل علينا وأركتي السجا قاشان وكعليها يو السجا قاشان وكعليها ساد رادد وحاسود دار مينا إن المالمها كفى إذا يسنو نبي قلنا صلى الله عليه وسلم سيدا كلا تمرون كهلا مالما وحودها مالمها ومالمها وين إلهي أكتيسة بتصدى تصبيح ده هي تحميد ده هي تكبير هي تهليش بتصدى معناه حوالي لا إله إلا الله هي الله أكبر سبحان الله والحمد لله بتصدى أيوة النبي قلنا صلى الله عليه وسلم مركب على بهاي إن كنت دارنا مالمها قرآن كأن بدن أغرس كيسة جوجست مسجد كاعتكاف كأن بدن صلة الرحم قراب حريرس كأن بدنه صدق ديبست أن بدنه وندي يرجعون قف كيبا إلهي جعنتي سجليه مال أنت الطبنات وحي أو قال لها قف والباود يرجعونه ويران ناف أم بالله بو يكبر قفك وحي وقال كريا ما كحر نمل بقول قفك قلا وفائدة خير والوجود هي سكرة هل قفك هلي كران نافنه وخير يفائده marka ina u diyaar garownana waa loo baahan yahay qofkii ilaahay gacantiisa wax galsho oo isu diyaariyo maalinta tobanaad ee xajka udxiyadii iyo hadigii la qalaayo oo qof kastaaba dhiig daadsado nabiga sallallahu alayhi wasallam dhiigaas wuxuu yiri intuusan dhicin dhulka dhiigaasi ayuu meel weyn oo ilaahay agtiisa ka dhaca intuusan dhulka ku daadan waa ayuu ilaahay agtiisa meel weyn ka dhaca dhiigaasi boos weyn ayuu ilaahay agtiisa ku buuxinaa أجر يا خير يا بركة أو كوجب الحنا وأنتوا سنقولك كل ديك نفك دولك أديفيس هذا دولك أديفيسي أنتوا سنديك دولك جارين أيوة إلهي جارة إلهي القرآن كيس محولي هاي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها إلهي ما جارة ديجا يهلبكو إلهي ما جارة ولكن يناله التقوى منكم الله كعبسك قلب جينا أي إلهي جارة ساد رد يا مرته وحوتها وحوين غالية أو قفك أبحثي مركو السماء أضحية داس قفك ما دونايو أو إنه أضحية استربا وحاسنا إنه نتنت إسكسي جرين عجيها إسكسي جرين أو ديسته مالك معناها وحومة تلي أسو حاجية حجايد مقتها تنتنا محيرتان قرك مجران عجيها مجران وحومة تلي أسو حاجية
meesha ay dad ay marayaan amaakintii waaweyneeday ee khayrka badneeday ee Safa iyo Marwo iyo Carafa iyo Mina iyo dhulkaas ay marayaan waxa waaye dadka kalene kuwaas ayagoo qulubtay kala soconayaan markaas waxay sameynayaan oo kale sameynayaan maalinka ay hadiga qalanayaan ayaguna udxiye dadka kala qalahayaan dadka xidka jooga hadi ayaa la yiraahdaa waxay qalaan dadka kale tan xujaayahayna udxiya la dhahaa waxay qalaan saadarteed marka waxa loo baahan yahay aan dadaalno maalmahan iyaysan naga fakanin aan ku dadaalno haday naga fakadaan maalmaha ugu dambeeyo sagaalaadkuna kuma sii juraba sagaalaadku ma ku sii juraba yowsan ku dhaafin marka insha Allah taala waxa soo dardaarmayna dadaal badan iyo cibaado ayaa soo dardaarmayna hada wabillahi tawfiiq wasalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa shukran la ala husn istimaa'ikum insha Allah taala waan ku celinayaa dadka jamaacada iyo muslimiinta in masjidka gogol loo helo masjidka gogol ma haysa fiican gogol la'aana ka jirto marka aan ku dadaalno ina masjidka gogol u helno insha Allah taala qof kasta oo karaankaada iyo tabartaada bilaaba taasi Allah way tahay ma yaqaan markuu bisha dhalay aniga maxaa maleynaa maanta 3 waa tirada aan haysana soo ma bisha tirada 3 aan haysana hadda anaga ha maalintii macnaha bisha dhalashada aan daa xisaabsano inay maanta 3 nootaan haysana 22 23 24 oo bishan kaleeto inay la socoto saas xisaabtan oo haysana ya saas maano ha tobanka jumcada dambe ayuu ku beegan yahay marka tirada aan haysana